mid kastoo halkaa fadhiya haddii da'diisa la weydiiyo uu sheegi 30 jir 40 jir 50 jir haluma jar intaa doontaba sheego intaa ka hor halkeed joogaysa lasta bishay horay waxba uma dahaanayn imikana waxba ma tihid ee ilaahay baa ku jirsiiyay iraadadiisa iyo amarka ilaahna waad ku socotaa ilaahay bayna keenay adduunyadan oo ina jirsiiyay wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay inni jaa'ilun fil ardi khalifa markuu ilaahay nabi aadan calayhi salaam uu abuurayay malaa'igtii buu u bishaareeyay ku yiri waxaan sameeynayaa khaliifkaygii baan sameysanayaa khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay arlada ku awaamirtayda ku fuliya arlada ku aniga wakiiliga noqda oo mashayga iyo waxaan doonaya yeela oo aniga garto aniga adeeca oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuurayaa baa ilaahay malaa'igtu waxay yiraahdeen ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiiga daadiya hada tasbiix iyo tahmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annaka ku caabudayno nuuraaniyiin oo ku caasinayna ilaahay wuxuu ku jawaabo yiri inni a'lamu ma la ta'lamun waxaan ogahay waxaan idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yiri marka bashar buu ilaahay naga dhigay walaqad karramna bani aadama baa ilaahay yiri bani aadanka waan karaamaynay wa hamalnaahum fil barri wal bahri barriga iyo badaba waan xambaarsinay warazaqnaahum min ad-dayyibaat arzaqada ugu wanaagsan waan ku arzaaqnay wa faddalnaahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila khalqi farabadan oo sameeyana insaan kan ka karaameeyay baa ilaahay yiri marka nicmatul insaniya waa nicmad weeyaan laakiin nicmada muslimiinta kaliya gaar uma ee balka kale aan muslimka ahayn ba nicmada uu la wadaaga waa bashar kama juusiga calaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu sameystay caabudaya iyo ka muslimka ilaahay caabudaya ba nicmadaas way u dhaxaysaayo dadkoo dhan waa bani aadam weeyaan nicmada yar waxa kale oo kamid ah la yiri arsaaqadu waa nicmad weeyaan arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye bal kuwa kalena arsaaqada uu siiyaa abdi laka alayya rizqaka wa li alayka fariidatun in khalaftani fi fariidati lam ukhalifuka fi rizqika adoonkaygiyo baa ilaahay yiri adigana waajibaadii awaamir iyo ahkaam baan ku saaray aniguna arsaaqadaadi baan ballan qaaday inaan ku siinayo hadii fariidii waajibaadkii aan ku saaray aad ka tagtana anu arsaaqada ka goosan maayo baa ilaahay yiri arsaaqadu waa nicmad weeyaan laakiin waa nicmad caama dadkoo dhan bay ka dhaxaysaa nabi ibraahim calayhi salaam martiqaadku aad u jeclaa keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine nin marti ayaa u yimiday markaasuu neef u qalay cuntadiiba u dhigay markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay khashab uu caabudayo halkaa ku sitaa markaa khashabkii baa ka soo dhacay ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday wuxuu yidhi soco buu kuma siinaya cuntadayde liannaka hayrullahi baad caabudaa uu ka socday ninkii jibriil baa u yimid calayhi salaam yaa ibraahim ilaahay uu kusoo salaamaya wuxuuna kaa yiri adoonka maxaad u erido cuntada u siin weyday markaasuu yidhi yaa rabbi ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib u ahaa uffin lakum walima tacbuduuna buu yidhi ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan niyada buu yidhi wuxuu yidhi ninkaas ilaahay keyrkii buu caabudayo hoosta ku haystay yaa jibriil ilaahay baa yaa jibriil ku dha khaliilkayga ma maalin keliya ku yimid dad cunto siini weydee 70 sano sanabka uu samaystay caabudaa oo waliba ku arsaaqa baa ilaahay yidhi razaaq waa ilaahay arsaaqadu waa nicmad weeyaan nicmadaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay bashar caqligu waa nicmad weeyaan caqliga dadka kaleba way kula wadaagaan maqalku waa nicmad weeyaan nicmada maqalka dadkoo dhan baa kula wadaaga aragu waa nicmad weeyaan akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun qalilan ma tashkurun hooyooyinkiin ayuu naga soo saaray uurkooga ilaahay inkoo waxba garanayn markaasuu maqal inii yeelay arag buu inii siiyey qalbi buu inii siiyey bashar buu inaga dhigay nicmadaasina waa nicmad cumuumiya nicmadaas dadkoo dhan bay ka dhaxaysaa mancim waa ilaahay wamaa asbaxa minkum min nicmatin famin allah wamaa bikum min nicmatin famin allah waxalli waxaa nicmadaad haysataan ee gabalku iniila dhacayo waaguna iniigu baryaayo ilaahay baa ini siiyey koonka ilaahay baa inii sakhiray adceedda ilaahay baa soo saaraya amarka ilaahay baa ku soo baxaysa amarka ilaahay baa ku dhacaysa dhulka aad ku socotay ilaahay baa kuu ballaadhiyey was-samaa'a banaynaaha biaydin
وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. صمد إلهي با سميي وإلهي قعنتيسو صمد كو سميي قعنتيس دولك إلهي با فرشي أو بلاديي شيء كسنا لبا أيان كدغني با إلهي دسادو أن تودان دراري هبين ضيح يا عدعاد كليل يا قبو أبار يا برواقو نبدقلي يا عبسي نلول يا جيري حنون يا عافمات لبي يا ددق فقير يا غني حنون يا عافمات فقر يا غنى عزة يا ذلة شيء والبلبا أيان كدغني با إلهي دسادو أن تودان ففروا إلى الله حق إبهن وياع حق مخلوقه وياعنا غير الله كياع أو إلهي حق سأياع من خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب إليه نك شيء كعب صدع شيء أكبح صدع وكأرضع نك إلهي كعب صدع إلهي حق سوء أرضع هدي اللي بقى حد كعب صدع واتكب حسن هدي إلهي كعب صدع حقه بحسن حق سوء بحسن مالك الله بحسن يا مجرته مالك الله اسكو ديبه يا مجرته حق اسكو ديب تصغير إلهي إنسان كان سيكون كون كوسخري سخر لكم ما في الأرض جميعا برقي بكو سخري بوريه بكو سخري بدي بكو سخري هودي بكو سخري كائنات كودن بادي كو سخري حوله بكو سخري وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين بإلهي وإن لكم في الأنعام نعموا ليدات هيستان عبرة إن يقصوا جنب إلهي نسقيكم ونقورا بنا مما في بطونه شيء علوش إذا يكون هيستو عنها سون كسر دح صارنا بإلهي ديجي أوسن تود حسا كسر صارنا بليد عنعد تصغير حوله بالغو صخري عدعدي بالغو صخري هبينك بالغو صخري درارتا بالغو صخري biyaha lagu sakhiray hawada lagu sakhiray arsaaqadii baa lagu sakhiray malaa'ig baa ka shaqeynaysa arsaaqadaada oo wax kale ba ka shaqeyneen afarta malag ee quraanku sheegay jibriil alayhi salaam iyo israafiil alayhi salaam iyo mikaa'il alayhi salaam iyo malakul maut afartaasiba bini aadamku ba u khidmeynayaan labana ruuxda ku shaqaleeyeen labana jasadkay ku shaqaleeyeen laba jasadkay ku shaqaleeyeen jibriil alayhi salaam wuxuu keenay waxyigii ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay mikaa'il alayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqaleeyahay israafiil alayhi salaam wuxuu ku shaqaleeyahay insaankan in ruuxdu ka in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo nooleeyo hadana malakul mawt wuxuu ku shaqaleeyahay qabd al arwaax inuu bini aadamka ruuxda ka qabto الإنسان كسد إلهي أكرم يوفرسو خلقنا إلهي سجينا أبو ري سجينا جرسيي سجى إلهي نو نعمي يا أيها الإنسان وداعي ولبا إلهي وكويا ريا كما هدين ولبنا إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سوائي با إلهي أنيجي أدون كيغا وربانا دحمر با إلهي وروين بانا قد حدعي أخلق وأنيجا أبو ري با إلهي ويعبد غيري غير كينا وعابديا احنا أبوري غير كينا وعابديا غير كينا ورجينيا غير كينا وتلصارنيا غير كينا وسكوها لينيا غير كينا واعتماديا أرزق ويشكر سواي أنا يا أرزاق با إلهي غير كينا وأكون مهدنيا أرزاق دايا بحيا الله با بحيا خيري إلى عبادي النازل وشرهم إلي ساعد با إلهي خير كيغي مالي والبووس ودقيا ضومهايغا شركوغين أنوغي صوفو ليا با إلهي maalin walba waa taas koonkoo dhan lagu sakhiray hawadii biyihii dabayshii cadcaadii dharaartii habeenkii arsaaqadii biyihii waa lagu sakhiray acmaasha bini aadamka ka soo fulaysa ilaahay xaggiisa loo qaadayana waa acmaal ilaahay ka cadhaysiinaysa intaad ilaahay caasinaysa iyo intaad ilaahay adeecaysa iyo maa badan bal adigu xisaabi khayrii ilaa cibaadi naazil wa sharruhum ilaya saacid khayrkaygii uu u degayaa maalin walba sharkooguna anuu soo fuulaa baa ilaahay تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس بالنبي يقولي مالين كسو اثنين يا مالين كسو خميسة أعماش أضومها جركوكا كسو بحدا يا إله الله بندقاب رسولك يقولي markay adoomadu ay ilaahay caasiyaan ilaahay jalla wa ala waa aroonaya atahabbabu ilayhim bi ni'ami wa ana al-ghani anhum wa anu ni'mayna ya ba ilaahay walibana